ugu yaraan 10 qof oo ah qaxooti Soomaali ah oo ku noolaa xiriyaha qaxootiga ee wadanka Uganda ayaa gaajo iyo safmarka COVID-19 u geeriyooday labadii toddobaad ee ugu dambeysay. waxaa la sheegay sababta ay u geeriyoodeen inay tahay caawimaad la'aan maadaama dalka Uganda uu ku jiro xayiraad ballaaran oo dhanka fayraska corona. Khalis Maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Uganda oo la hadlay wakaaladda wararka ee Andrew Agency ayaa sheegay in qaar ka mid ah qaxootigu ay u dhinteen gaajo halka kuwa kalena ay u dhinteen coronavirus. ma gaari karno kuwa u baahan sabab la xiriira xayiraadaha COVID-19. qaxootigu waxay ku baahsan yihiin xaafadaha caasimadda oo dhan si ay caawimaad u helaanna way adag tahay in la gaaro ayuu yiri Khalis. wuxuu sheegay inay jiraan muwaadiniin Soomaaliyeed oo maalqabeena oo ganacsi ku leh magaalada Kampala laakiin aysan gaari karin dadka u nugul xayiraadaha jira awgood. 6 Juun madaxweynaha wadankaasi Yoweri Museveni ayaa ku dhawaaqay xayiraado dalka oo idil sabab la xiriira xanuunka sii kordhaya ee viruska. sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Uganda tirada guud ee kiisaska COVID-19 ee dalka ayaa gaaray 87,277 qof iyadoo 2,104 qofna ay u dhinteen halka ilaa ay haatan ka soo kabsadeen 61,304 ruux. Yusuf Abdi, wararka RTN. markasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xad lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xad lahayn muddo bil ah. inoogu shub marka la dhamays waa maxay dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn ma heli karaa mid gashubo xidig 1 gees amaba xidig 4 gees. mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac.